بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم maanta waxaan jecel lahay inaynu hambalyo u dirno haddaan xusbiga nahay ucud ciidamada qaranka Somaliland sanad guurada 26 sanadood ay jireen waxaan leeyahay hambalyo ciidamadeena ilaahay hadaaye waxa way noqdeen hay'adihii aynu dhisinay institutions aynu dhisinay ka ugu fiican ee hana qaaday ay noqdeen waxay noqdeen ciidanka aan weligoodba aan la jabin mar kastaba guusha hela waxay noqdeen ciidanka ugu edebta badan ee weligood aan laga soo ashkato waxay noqdeen ciidanka ka shaqeeya nabadda kuma ee ka qora difaace meel allah meesha qulqulada ka timaado waxa weeye way ka shaqeeyaan waxay ugu farxad weyneed maalinta anoo laascaanood ku socda ay ciidan igaga hor yimaadeen markaan oog dhaafay anoo isla malaa waxay u yimaadeen inay kusii raacaan oo kusii ilaaliyaan ay yidhahdeen maxamed halkan waxaan u nimi roob baa ka da-ay aagan beelihii baa isku soo guuriya reer guuraagii marka waxaan leenahay ha isku dhicina raxmadda ilaahay wada daaqa ilaa halkaas ka shaqeeya dhul badan maanta Somaliland ay joogaan ayaa ay ka yihiin haddana xukuumaddii oo maamul adagi aanu ka jirin iyagana ku seexanaa difaaca iyo nabadgelyadaba marka waxaan leeyahay hambalyo insha allahu tacaala waxaa noqon doontaan ciidan lagu faano ay noqon doontaan ilaah waan ka baryaana in caruurtiina iyo caafimaadkiinaba ilaahay khayr siiyana ilaah u barya subxana wa tacaala magac baad noo soo jiideen sumcad baad noo soo jiideen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leeyahay khayr idinka siiya marka waa hambalyadaasaan tirinaa gudoomiye dhowaan beesha caalamku baarlamaanka Soomaaliya waxay ka dalbatay inay sameeyaan qorshe lagu geliyo doorashada Soomaaliya xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliya maxaa sababay in beesha caalamka ay Soomaaliya ama baarlamaankeeda ay ka dalbato inay sameeyaan qorshayaasha doorashooyinka horta arrintaas waxa weeye arrin inagana khusaysa maaha waad ogtihiinoo baarlamaanka Soomaaliya dad iska tegay meeshaas oo loo bixiyay dir waqooyi ayaa ay ku buuxsan jireen oo meelaha ka taga oo inagana ayna matanin dalkeena aan imanin haddaba waxay bilaabeen waxaan suurtagal ahayn ayuu bilaabay maamulkan magaranaysa Muqdisho ee farmaajo iyo kooxdiisa yaryare waxay yidhahdeen one man one vote ayaanu qabanaynaa de markay yidhahdeen one man one vote dir waqooyi xayuu ka soo bixi inay meel dhulkii one man vote ka ma joogaane magac caalamku wuxuu leeyahay wixii abeenta ay sheegi jirteen dir waqooyi haddaad tirahay one man one vote sidee baynu samayn kartaan siday ku suurtageli kartaa intaasun baa leeyahay wax inagana khuseeya dir waqooyi baa qiil loo doonayahay dee wax inagana ina saameeya riwaayaddaas inay ku nool yihiin Soomaaliya laakiin riwaayadda ay wadaan farmaajo gurubkiisa way iska soo dhamaanaysaa Soomaaliya inaga insha allahu tacaala arrinteeda hagaajin doona inaga dad caqli leh oo dantooda ka shaqeeya oo caarkooda ka xishooda oo 22 kun ka xishooda oo shisheeye u yeedhinaya iska diida oo arrintooda xalayshaan si inagu u xalinay oo inu gacan ka siino insha allah doorashada soo socota ayaan doonayaa dad wanaagsan anagoo gacan ka geysano aan soo baxan insha allah kulankii ugu dambeeyay la qaadateen beesha caalamka maxaa kaga wada hadasheen beesha caalamka waa fiicantay madaxweyne war fiican baa laga keenay waanu hambalyeynaa warkaa fiican laga keenay madaxweynaha waxaan leenahay insha allahu tacaala warkaa uu keenay ayuu ka dhabeyn doonaa annaguna gacan wuxuu gacan nooga baahdo waanu siinaa anu mar kastaba in doorasho oo ah nolosha waa nolosha Somaliland doorasho
marka madaxweyneha war fiican ba nooga keenay safiiradii iska dambeeyey waananu ku faraxnay annaguna waa diyaar baanu in la shaqeyno insha allah doorasha noo dhacdo